nolosha dawladnimada iyo shacabka iyo diin iyo adduunyada iyo dawladba kulli yaan loo dhiibin dadka sufahada ah. Sufahada culimadu waxay ku sheegaan laba qolo in loola jeedo safiih mid waxa la yiraahdaa qofka xoolaha loo dhiiba si qaldan ugu tasarrufa oo meesha loogu talagalay meel aan ahayn ka bixiya hadduu yahay maalkaas maal caam oo ummadda ka dhaxeeyana khaa'inoo noqonaya waxa waajibaba in gacanta lagu dhigo oo xoolaha laga soo celiyo maxkamadda la saaro laana ummadda wixii buu si qaldan u isticmaalaya ama uu ku ciyaaraya marka magaca ilaahay u bixiyo waa safiih qofkaas. qofka labaadna waa qofka maalka khaaska ah oo leeyahay aan si sax u maamuli karino asaguna ku dheelaaya xoolihiisa xataa waa laga qabanaya maxjuur caliha la yiraahdo fiqigu magacaas u bixiyay marka wixiisa lagu maamulaya asagana waa safiih asaguna aqligiisa iyo maskaxiisa kuma filna marka labadaas midna xoolaha caamka iyo kuwa khaaska ee aad ku taagan tihiin ka ilaaliyo leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala u dhiibina taa markii laga soo tago marka waxa ilaahay sunnadiisa kamida koon walba dhaqaale ku filan ayuu dhigay koonka oo dhan wadan walba iyo magaalo walba waa ajiib Soomaaliya kaleeto dhaqaalaheedii oo dhameystiran bad iyo barri ayaa loo dhigay maamulka dawladnimaduna waa soo saari kariyaa awood sharci ah loo siiyay inuu canshuurta qaato inuu zakada aruuriyo fuqarada iyo masaakiinta uu siiyo inuu hadii labadu ku filnaa waayaan dadka xoolahooda sida dagaalada markay jiraan iyo shacabka inay dhaqaale dib looga aruuriyo si dalka loo badbaadiyo intaas oo dhan tacaliim islaami waay oo dawlad islaamiya uulaana ay ku dhaqantay wadogtiin markii futuuxaadka islaamiga la sameeyay Allah wuxuu quraanku leeyahay wada aragtay wax badan wajaahidu bi amwalikum wa anfusikum nafka hatta maalka laga hormariyo walidaalika khubarada reer galbeedka waaweyn ee wax qoreen nimanka khabiirada ah taariikhda siyaasi islaami wax ka qoray iska dhaaf dadka muslimiinta kuwa aan muslimiinta ahayn oo kristanka u badan ee waaweyn Mareykanka Ingiriiska Jarmalka Faransiiska iyo qeyrkoodba ah si Tubini iyo Neil Hudson iyo Hiti iyo Bayk Nilirado iyo rag lamida nimankaas oo dhan waxay qirayaan saddex arrimood in dawladda islaamka ay ku guuleysatay dawladda ugu horeysay qarniga koowaad nabigu aasaas sallallahu alayhi wasallam ilaa qarniga 13aad suuqa dhaqaalaha iyo dhaqaalaha adduunka ugu ilbaxnimada iyo horumarinta waxa hogaaminaya caalamka oo dhan muslimiinta qowmiyadka kaleeto waa weynaayo iyaga ka weynay carabta waliba iyo muslimiinta ka tirada badnaa sida Jaynaaska iyo Yurubiyaanka iyo Furuski kulligood waa hareen waxa reebay saddex arrimood oo iyagu ay ku guuleysay waayeen warkaas waxa qoray wadada muslimiin ay ugu khubara kutubtoodii la soo turjumay baan ayaa idinku qofka Ingiriis yaqaan ku aqoonsan kara kii Carabi yaqaan Carabi ku aqoonsan kara ama Faransiis kulligood ay yaalin waxay leeyihiin koow nabigu wuxuu ku guuleystay sallallahu alayhi wasallam iyo khulafaa ar-raashidiin dadka inay akhlaaqda ka dhiseen iyo ruuxda oo qofka muslimka ah oo yahay qof amiin ah oo xoolaha ummadda ama qof shakhsi ah lahaado ama qaranka ay dawladdu halahaatee iska ilaalinayo taasa keenta marka in dhammaan dhaqaalihi si cadaalad ah oo isu miisaaman oo alla ka cabsi lah in lagu bixiyo oo soo dadajisa dhaqaaluhu inuu kobco oo dhaqaale badan la helo waa tii gaartay in dawladda Umar ibn Abdul Aziz ee aan wali 100 sano idoon gaarin oo 70 iyo la marayo iyo 60 iyo inta u dhaxaysay dawlad taariikh islaami waa tii qof zaka qaata la waayay oo dadka dhan umaraa'ul manaadiq Masr iyo Sham iyo Iran iyo Khurasan iyo Afrika iyo ila Maghrib al-Arabi ila kulli dadka muslimiinta ay joogay walaadi loo qoro leeyahay zakada dhaqaalaha waxa jirtay wasaaradda maaliyadda oo kale meesha hadda ay joogto iyo riqaab al-maaliya oo lahay amiirku oo lahay oo labaduba wada shaqeeyo oo dhaqaalaha soo tira kooba sanad walba aakhirkiisa marka dhaqaalihii waxay soo gudbiyeen in khasnadii ay buuxaan dahab iyo diinaar zakadii hal la bixiyo yiri qof zakada si waa la waaya lagu soo celiyo amiirka wuxuu yiri marka haday saas tahay alxamdulillahi alladhi aghna ibadahu min awsakh an-nas wa zakatihim ilaahi dadka awsakhdooda zakadooda ka deeqay baa mahadleh wiilasha dhalinyarada gabdhaha dhalinyarada iska bulada isugu guuriya khasnada ka bixiyo lacagta isugu guuriya kuwa ijaar ku jirana guriga ugu dhisa ee ijaar ka saara kuwa beeraha aan lahayn beero uu gada ugu maalgeliya kuwa maartay xirfadaha lana shaqo ugu abuura lacagta la bixiyo dhammaan khasnadii lacagta saas looga bixiyo shacabka lagu celiyay الدولة الإسلامية الأولى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نزاهده أمانته على كعسى كل شيء ماشي أصلي مسلمين تجاسسي إلى هذا ودمده يوروب البحنمدي أيجو هذا النظام كعسى أدوك فائدة استي السلام كان كقاعتي
dawlad gaarta ma jirto meesha dawlad islaami ay gaartay dhinacaas waxa ugu dhawaad ay hadda adduunka oo horumarinta bulshada ku hogaamisa caalamka dawladda Denmark dawladdaas yar ee Denmark aad u horeysa dawladdaas ilaa hadda waxay tusaale ka dhigataa dawladdii Umar ibn Abdul Aziz iyo dawlad Bani Umayya iyo Ibn Abbas sida Harun Rashid Ibn Abbas marka laga hadlayo nidaamkii maaliga ah iyo casriga ah iyo dejiyeen meesha mujtamacaad gaarsiiyay ilaa hadda dawlad gaarta ma jirto haddaba haday sidaas tahay marka walaalayaal maanta anaga saddex arrimood aan u baahanahay inaan islaamkuna uu ku dhismo ka hormaray oo nimankaas khibradan isku wada raaceen midda koobaad waa midaas akhlaaqda iyo amaanada in la isku xiro Allahna waa tuu yiri subhanahu wa ta'ala ala lisan Yusuf alayhi salam waa tuu yiri ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim waxaan nasiib wanaaga wasaaradda maaliyadda maanta iyo dhamaanba dawladda ila madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dad wada culimo ah oo aqoon-yahan inay gacanta ku hayaan oo ahlu diin ah oo xalaali xaraan kala yaqaan oo dalkan iyo dadkan amaanadooda inay si sax u gutaan u istaagay oo soo kaambin gareeyay marka doctor cilmi iyo wasiir ku-xigeenkiisa iyo agaasimihiisa guud iyo agaasimaha budgetka iyo agaasimayaasha aqoon-yahanka wada ah iyo agaasimayaasha guud ee wasaaradaha kala jooga kulligood waxaa nasiib wanaag ah in ay wada yihiin dad khibradna u leh dawladnimadana si fiican u soo maaratay darsay ama wax badan la soo noolay nidaamka dawladnimadana fariisiyay aqoon durugsan u leh amaanadeedana xambaarsan walidaalika hadda ka hor maraan halkan ka hadlayo waxaan yiri wasiir xaqinkiisa wato xirtiisa ka dabdudaysa yaan la keenin ee wasaaradaha kawaadirta joogta agaasimayaasha guud iyo agaasimayaasha waaxaha ee khibradda u leh shaqada socota loo daayo ee wasiiradu waa siyaasiyiin dadka jooga meesha ha shaqo galiyaan laakiin haddii wasiir walba xirkada ordaysanta yimaado dadkii joogay ee intaasoo sano wasaaraddan yaqiina sida loo soo dhaqaajiyo la xaaqo ee kuwa cusub la keeno waa la fashilmaya horena u soo aragnay marka nasiib wanaag wasaaradda maaliyadda wasiirka hadda jooga iyo xataa wasiir ka horeeyay iyo waxaan u hambalyeynaa iyo wasiir badan oo jira inay taladaas runtii ay fushay waana waxyaabaha dawladda madaxweyne xasan sheekh iyo ra'iisul wasaare xamza lagu amaano xilgan jirta qodobka labaad waxa waaye waa qodobka ah masaadirta dhaqaale si ay u badato dawladda islaamiga nimanka khibrada waxay yiraahdeen waxay maal gelisay labada qidaac oo ugu muhiimsan oo ah beeraha iyo warshadaha dawladda islaamka beeraha futuuxaadka islaamiga marka ay dhaceen ee Ciraaq iyo Shaam iyo Khuraasaan dhulka la qabtay ee Byzantiinta iyo Saasaaniyiinta ama Furus iyo Room nimanka metelay lagala wareegay boqortooyinkaas dadka waa dulmi jireen oo dhulka intay kala wareegaan waxay ku noolaadaan oo gola inta kale tan boqortooyada la soo diri jiray asal ugu tamashlay jiray laakiin dawladda islaamiga mabdii aan sheego hore ay ku dhisneedo dadkii baa loogu maalgeliyay beerahoodii kharaaj boqolkiiba 5 ilaa 10 ah laga qaatay inta kale tan idinku iyaga lagu maalgeliyay taasaa keentay hodantinimada degdega keentay wasaaradda maaliyadda marka canshuurta yaro ay qaadato kuma filnee waxaa laga maarmaan maadaama khawaarijta dalka ay ka baxayso hadda alxamdulillah laga xoreynayo in dhulbeereedkii iyo warshadihii iyo ganacsigii in la maalgeliyo oo dhaqaalaha ganacsatada Soomaaliyeed ganacsatada ilaa Afrika iyo Asia maalgelinaysa dalka lagu soo celiyay kuwa joogana inta la fariistaan hay'adaha maaliga in dalka in la warshadeeyo oo jidadkiisa la dhiso oo beerihiisa la maalgeliyo dawladdana waxa uga aadan ay ka uga faa'iideyso waa mabdii dawladda islaamiga uu ay ku guuleysato waan laga maarmaan waxaan wax macna lahayn mashaariicda capacity building kaliya lagu dhisaayo boqolaalka milyan ee aan wax raad aan lahayn ee wasaaradaha soo maraya mashaariicda lagu sheegayo inaan ka gudubnana waa laga maarmaan ee wax la taabo karo dadka Soomaaliyeed la noolaadaan oo dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxda ay shaqo ka helaan oo ay ka shaqeeyaan xirfadooda kala duwan waa in la abuura albaabka laga galayna waa wasaaradda maaliyadda waxaan ku soo gabagabeynayaa culimadu waxay yiraahdeen Dr. Maxamed Xaaji iyo Dr. Sheekh Ali Daara iyo Sheekh Ali Xoogsade culimo badan waa joogtaa raalliga ahaadaan runtii iga mudnaad in kalimadan soo jeediyaan waxa laga maarmaan ah in marxaladan khawaarij dalka laga xoreynayo in nafta iyo maalka mashruucaas la wada aado dhammaan arrimaha siyaasadeed ducaynta dawladda lagu haayo nan la iska dhig meel la iska dhigo dawladda ayaa dalka mas'uulka ah madaxweynaha ayaa waliyul amri walaayada caamka haysta xukuumaddiisana asaga u tafwiidiyay oo ayadu waa hay'adda fulinta baarlamaankuna waa hay'adda hooyada ayadoo laga soo labadiisa aqal oo laga soo baxay mu'assasaadkaas dawladda iyo bulshada daba taagan waa in dalka khawaarijta laga xoreeyaa intii taas lagu guuleysanayana dood siyaasadeed iyo ducayn kale oo furan ma jirto culimada Soomaaliyeedna waxay tarkiisinaysaa tawxiidul kalima iyo wahdatul tawxiidullaahi ilaahay la waxido iyo wahdatul kalima iyo kelimada ummadoo la mideeyo iyo daacada awliyaa al-umuur madaxda oo lagu adeeco fil xaqi wixii xaq ah
wixii aqaldanna looga naseexeeyo ayaa horumarka adduunyo iyo midka aakhira ku dhisan yahay. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.